الحمد لله رب العالمين، والعاقبة للمتقين ولا عدوان إلا على الظالمين، وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له، وأشهد أن محمدًا عبده ورسوله. اللهم صل وسلم وبارك على محمد وعلى آله وصحبه وسلم تسليما كثيرا، وبعد، فسلام الله عليكم ورحمته وبركاته. أيها الأحبة، إن شاء الله تعالى وذكر فإن الذكرى تنفع المؤمنين. waxaa garanaysaan baan isku dayayaa inaan idin xasuusiyo al-uswa alxasana, ku dayashada fiican. uswadu fi luga waa alqudwa, alitisaa, aliqtidaa. xasano iyo sayaabo waa noqotaa, laakiin bini aadamku bay yidhaahdaan noloshiisa kama maarmo ciduu ku daydo. bini aadamku noloshiisa ciduu ku daydo oo hormood u noqota kama maarmo. waxaanay reer galbeedku yidhaahdaan role model. soomaaliduna waxay tidhaahdaa bini aadamku waa indha ku garaadle. yacni garaadku, garashadu indhahay kaga jirtaa bay yidhahdaan bini aadamka. wuxuu arko ayuu inta badan u ku daydaa. maadaama bini aadamku aanu ka maarmin ku dayashada, aadam iyo xaawo markii la abuuray, bini aadam ka horeeyey oo ay ku daydaan ma jiro. bashar iyaga ka horeeyey oo ay ku daydaan iyaga ma jirin. daruurina way u tahay bini aadamku cid uu ku dayday inuu helo. ilaahay subxaanahu wa tacaala iyaga buu tajribo siiyey. markaa iyagaa janno la geeyey, dabeetana geedka aha cunina la yidhi. tajriba baa rabbi siiyey. waayo waxaad ku garanaysaa marka horeba ilaahay malaa'igta markuu iclaanka siinayay waxaa loo sheegay, waid qaala rabbuka lilmalaa'ikati innii jaacilun fi lardi khaliifa. dhulka inuu marka horeba loo abuuraa la tilmaamaya. innii jaacilun fi lard, dhulka waxaan ka yeeli doonaa baa ilaahay leeyahay khaliifa. laakiin intaan dhulka la keenin waxa la geeyey janno lagu tababaro oo wax mamnuuca loo tilmaamay. tajribadaasi markii uu galay kadib ayaa ilaahay subxaanahu wa tacaala adduunka keenay. isagaa markaa tusaale isu ah wixii soo qabsaday. dadka aynu garanayno nebi maxamed ba calayhi salaatu wasalaam u fadli badan oo u mudan. haddana ilaahay intuu qur-aanka ugaga warramay rusul badan iyo ambiyo badan iyo wixii iyaga iyo dadkooda kala qabsaday iyo dacwada iyo diinta waxay la soo mareen, ayaa fii suurati alancaam 12 nebi inta ilaahay ka warramay ayaa waxaa la yidhi ulaa'ika aladiina hada allah fabihudaahu muqtadih baa ilaahay yidhi. 12 nebi markaa alla ka warramay ayaa ilaahay wuxuu yidhi ulaa'ika aladiina hada allah. kuwaa lagaaga warramayay waa kuwii rabbi hanuuniyey ee jidkiisa uu ku hanuuniyey. haddaba fabihudaahu muqtadih baa ilaahay yidhi. iyaga hanuunkoodii iyo jidkooda ku dayo. iyaga hanuunkoodii iyo jidkoodii ku dayo. si ogaale culimmadu waxay dhahdaan uswadu ama iqtidaagu waxa uu u baahan yahay waxaa ka mid ah mithaal xayiya, tusaale nool oo darajaatulkamaal gaadhay inuu helo, oo naftiisa ku abuurta icjaab iyo taqdiir iyo maxaba. inaad wax ku dayato waxa ka horeeya inaad ku qanacdo inuu waxani kula weynaado, inaad jeclaato. taasaa sababta in lagu daydo. caalamkaynu maanta joogna waa aragteen, nujuum baa loo sameeyey, waxa la yidhaha stars. dad bay u sameeyeen. dhallinyaradu markay arkaan way ooyaan.
farxad daraaddeed dabeetana waa ku dayanayaan waayo agtooda mucjabiin bay ku yihiin way la weyn yihiin marka hadduu dhafoorka xirtana dhafoorka la xiran hadduu mara karkaran qaato mara karkaran baa la qaadan wixii uu sameeyaba wax qurux leh u muuqdaan waayo mucjabun bihi weeyaan haddaanu muxibun lahu ba ahayn haddaanu mid jecel ba ahayn qudwada xasanka ahi markaas inay bashar noqoto waxa kaloo looga baahan yahay inaad ku qanacdid wax lagu dayan kara inuu yihi qur-aanka in badan marka rasusha ilaahay ka warramayo waxyaabahay ku eedaynayaan waxaa ka mid a gaaladu bashar baa tahay subxaana allah muxuu nebigu tilmaamay hal kuntu ilaa basharan rasuula oo miyaan ahay bashar rasuula mooyaane haddii malaa'ig la soo diri lahaa waxaynu odhan lahayn laguma dayanayo de isagu waa malag awoodo dheeraad uu leeyahy kan buu leeyahy kan buu leeyahy laakiin ilaahay subxaana wa tacaala wuxuu inoo doortay rusul in laynoo soo diro bini aadama ilaahay waa awooday kitaab qura in la soo diro oo layna fahamsiiyo laakiin kama maaranno qudwa kama maaranno cidaynu ku dayanno sida ogeed baa ilaahay isagoo inoo naxariisanayo wuxuu soo raaciyey kutub qura ma soo dejina rusul buu keenay kutubta loo soo dhiibay rusushaasi waxay noqonayaan waa kitaabkii oo xayiya kitaabku wuxuu sheegayay oo nool oo dhexdaada socda isugu noqdo idan inuu noqdo wax aad ku qanci karto kow oo ku cajab gelin kara laba inuu noqdo inaad rumaysato inay suurtagal tahay inaad ku dayato oo isba uu bini aadam yahay nabigu calayhi salaatu wasalaam nolosha bini aadamku maroo dhan buu maray agoonnimo rajaynimo in waddankiisii laga saaro colaad dagaal nabad madaxnimo waxa bini aadam uu dareemoo dhan noloshiisa haddaad daraasayso waad ka dhex arkaysaa waayo waxaa loogu talagalay inaynu ku dayanno uu noqdo tusaale noloshiisa qaybo mucjizaad iyo tashriifka waa ku jira maalan laba tusaalo basiidan ku siin ilaahi subxaana wa tacaala nebiga wuu dheelmiyey makaa laga kaxeeyey dabeetana bayt ilmaqdis baa la geeyey bayt ilmaqdis baa laga dheelmiyey ila asamaawaati alculaa waxay ahayd tashriif iyo takriim iyo tasliya lirasuuli illaahi sala allahu calayh waali wasalam waxay culammadu yidhahdaan tashriic may ahayn waxa la rabay inaynu kaga dayanno sida awgeed ilaahay baa subxaana wa tacaala awooddiisa uu isticmaalay dabeetana saasuu baxay ama tii la rabay inaynu kaga dayaneen nolosha ay waa hijrada meel balaayiin kilomitri sana iyo trillions aynu ku sheegi karnana habeen buu ku tego ku soo noqday markaa laga dhuftay waxaa la geeyey meel bil loo socdo bayt ilmaqdisa waa laga qaaday cirkaa la qabadsiiyey meel aan wax bini aadam oo gaadha ama makhluuq gaadhaaba aanu jirin baa la gaadhsiiyey taasi waxay idin leeyahay awooddiisa wax lagaga dayan karana ma ahayn amaa markii la rabay tashriica meel 500 kilomitir ka yar buu 14 casho u socday markii madiina dhexdooda oo dhuumanayo buuragalayo godadgalayo xeeb marayo xaggan u baxayo maxaa loogu talagalay tan tashriic bay inaan wax kaga dayan karno qodobka markaa saddexaad ee ay yidhaahdaan qudwada ama iqtidaaga ama uswada way u baahan tahay waxa weeyaan cidda lagu dayanayo in la hayo daqaa'iqu umuuri noloshiisa oo dhan in la hayo nabiyullaahi moxamed calayhi salaatu wasalaam taariikhda bini aadamkee hadda la hayo waa qofka ugu badan ee noloshiisu ay qorantahay maca kuwa nool ku dar oo qofka ugu badan ee noloshiisu habeen walba meeshuu seexday ama meeshuu istaagay ama wuxuu qabtay ama cidduu la hadlay la rikoodh gareeyey siiba 22 sannadood ee risaalada xataa musqusha markuu galo wuxuu samayn jiray recording la hayo duu musqusha galaya labada dinkuu horeysiin jiray gacmihiisa teebuu isticmaali jiray biyaha keebuu ku qabsan jiray markuu ka soo baxo siduu gacmihiisa u meedhi musqul siduu isticmaalaya ayaa
recorded ayaa la hayaa noloshiisii kale ka kaalay dadka siduu ula dhaqmay ama ula tacaamulay ama wax u maamulay ama u hogaamiyey ama u dagaalamay noloshiisii oo dhan baa la hayaa qofku cidda uu ku dayanayana inta badan noloshiisa wuu wada fiirsadaa wax khuseeya waxaan khusayninba haddaba ilaahi subxaanahu watacaala markii layna rabay innaga in laynoo sameeyo qudwa uswa qur-aanku 3 meelood buu eraygaasi ku isticmaalay 2 meelood nebi ibraahim baa lagu isticmaalay meelna nebi moxamed calayhi salaatu wasalaam nebi ibraahim ku dayda baa la yidhi hal waxa mooyaane istikfaaru ibraahiima liabiih taas ka reeb baa la yidhi wixii kale kaga dayda nabiyullaahi moxamed se ilaahay markuu ka warramay waxaa la yidhi laqad kaana lakum fii rasuuli illaahi uswatun xasana liman kaana yarju allaha walyowma alaakhira wadakara allaha kaiira laqad kaana lakum xarfu taxqiiq iyo laamu lqasr waxa idinku sugan baa ilaahay leeyay rasuulka nebi moxamed calayhi salaatu wasalaam fii rasuuli illaahi bay culammadu yidhaahdaan waa darfi tilmaamaya nebiga dhammaantii waxaad ku dayataa nebiga oo dhan siduu hadlayey siduu u dhaqmayey siduu wax u maamulayey siduu u soconayey siduu wax u arkayey siduu wax u maqlayey fii rasuuli illaah ilaahay rasuulkiisa waxa idinku sugan baa la yidhi uswatun xasana ku dayasho fiican idan nebiga calayhi salaatu wasalaam fii acdaa'ihi kulliha hadday tahay carabkiisa hadday tahay ishiisa hadday tahay gacantiisa hadday tahay noloshiisa oo dhan waxa idinku sugan baa ilaahay leeyahy uswatun xasana aayadda tan inta badan casriga dambe markaanu maqallo waxaa laga yaabaa marka masaa'ilka sunanka iyo waxaa laga hadlaya in had iyo goor la daliishado laqad kaana lakum fii rasuuli illaahi uswatun xasana laakiin aayaddani waxay ku jirtaa fii suurati alxazaab waxay ku jirtaa suurad ka warramaysa dagaaladii ugu adkaa ee nebi moxamed galay calayhi salaatu wasalaam masale aada u adag oo muslimiinta la gilgilay oo dad oo dhamm isu soo urursadeen axzaabba waxa loogu bixiyey waa huwan baa isugu timi dad isu urursaday gaashaanbuur yuhuud leh oo quraysh leh oo carab kale leh oo acraab leh oo cid walba leh ayaa isu urursatay dagaal bay nebi moxamed ku qaadeen calayhi salaatu wasalaam iyo saxaabadiisii waxaa loogu talagalay isti'saal in la cidhib gooyo muslimka magaalada yare madiinana la qabsado waa khandaqii waa kii nebigu godka qotay magaalada ku wareejiyey diinta ku sugmay ilaahay qur-aanku ku tilmaamaya zilzaal inuu ku dhacay dadka muslimiinta haddaba waxaa la leeyahay ilaahay rasuulkiisa waxaa idinku sugan uswa xasana ku dayasho fiican siduu u sabray siduu gaal isaga dhiciyey siduu u jihaatamay siduu ilaahay farajkiisa ugu kalsoonaaday sida uu diintiisa u xejistay nabiyullaahi moxamed calayhi salaatu wasalaam noloshiisoo dhan markaa dadka muslimiinta qudwa ugu sugan ahlulcilmigu waxay yidhaahdaan aliqtidaa'u birasuuli sala allahu calayhi waaalih wasalam amrun mutaridun wa caamun fi kulli lwujuuh waa arrin weji kastana ku saabsan noloshoo dhanna ku dareerta meel la leeyahay halkaa nebiga ka hadha oo wax kale ku dayda ma jirto meel la leeyahay meeshaa mooyaane inta kale nebiga kaga dayda innaga inta badan maskaxdeenna maxaa ka guuxaysa nebiga inaynu cibaadada iyo ilaahay saynu u rumaynayno iyo xaggaa kaga dayano ama muslimka maanta jooga haddii siyaasada lasoo qaado haddii dhaqaale lasoo qaado haddii ijtimaac lasoo qaado haddii nolosha adduunye maamulkeed wax ka mid ah haddii lasoo qaado cid xusaysa nebi maxamed waa iska yartay baab kalaa furmaya wax kalaa laga warramaya cid kalaa qudwo ah waddan hebel baa horu marayoo saasuu yeelay waddan kalaa fiicnaadayoo saan buu yeelay meel kale ka baxdo saan buu yeelay cid kalaa tusaaluhu markaa noqonaya innaga waxaad moodaa tusaalaha inuu nebigu yahay calayhi salaatu wasalaam weliba inta dadaalaysa
siduu tukan jiray ama u soomi jiray dhegta waa loo wada raarcinaya laakiin culimadu waxay leeyihiin al-iqtidaa'u birasuuli illaahi sala allahu calayhi wasalam amrun muttaridun wa caamun fi kulli lwujuuh markaa nabiga waxaa lagaga dayanaya calayhi salaatu wasalaam ilaahay noloshu soo mariyo o dhan zawj buu noqday oo aab buu noqday oo qaa'id ummad hogaamiyuu noqday oo qaadi buu noqday oo imaam buu ummadda u noqday oo mucallim buu noqday oo xaakim wax maamuluu noqday oo taajir baac mushtara buu noqday insaan kaamila fi kulli lwujuuh dhan kastoo bini aadam laga qiimeeyo nabiyullaahi moxamed calayhi salaatu wasalaam waxbuu ka sameeyey walidaalika baa qaar aan rumaysnayn oo reer galbeedka ah ama rag badanoo wax qora ama filosofris ah ayaa waxay qirayaan inuu yahay acdamu shakhsiya fi taariikh qofka bini aadamka ugu weynee dunida soo maray inuu yahay wax bini aadam uu ku guulaysto aanu ku guulaysanay inaanay jirin ilaahi subxaanahu wa tacaala nebiga wuxuu inoogu tilmaamaya wamaa arsalnaaka ilaa raxmatan lilcaalamiin umana soo diran ilaa iyo adduunka inaanu kuugu naxariisano ana araxma almuhdaa naxariis xagga alle laydinka soo hadiyeeyey baan ahay buu nebigu leeyahy ilaahay naxariisuu idiin soo diray oo idiin soo hadiyeeyey baan ahay aadamaha waxaa caadiya baynu nihi cidda weyne cadama wax ku leh xataa nolosha caadiga ah dadku way weyneeyaan qofka wax ku caanbaxa imka yararka kubadda cayaaree dunida kooda sida fiican wax u cayaara iyadoo wuxuuba ay tahay caag la neefeeyo 2 bilood la dhex marinayo waa nolosha qiimo ku lahayn haddana maadaama uu kuwa bahasha tuuro oo dhan uu u koreeyo ama u mudan yahay dadka agtooda wuu ku weyn yahay maxaad u malaynaysaa qofka noloshoo dhan ku badan nabiyullaahi moxamed calayhi salaatu wasalaam taariikhyahanada iyo dadka adduunka wax qoroo dhan waxa uga markhaati kacayaan inuu noloshoo dhan insaan kaamila ku yihi insaaniyadu bini aadamnimadu inay isaga ku dhammaatay ilaahayna dee qur-aankiisa uga markhaati kac bay dhaqan iyo akhlaaq tahay wainaka la calaa khuluqin cadiim waxaad tahay mid dhaqan fiican leh jumla ismiya adawaatu tawkiid ku dhan tahay ayaa ilaahay ku tilmaamaya wainaka la calaa khuluqin cadiim wainaka la tahdi ila siraatin mustaqiim wain tutiicuuhu tahtaduu alam nashrax laka sadrak wawadacna canka wisrak qur-aan tiro badan baa ilaahay wuxuu inoo tilmaamaya nebi moxamed calayhi salaatu wasalaam mudnaantiisa siiradiisuna sidoo kale tilmaamaysaa saxaabadu raggii geesiyada habaa leh markay nagu adkaato isagaanu ku gaban jirnay waa goob dagaal marka la joogo hadday siyaasad tahay fi taariikh meel 2 dowladooda waaweyni ka jiraan oo carab inta u nicmada leh ay hoggaansadaan shaam iyo intaasoo dhan dowlad rumaaniya bay hoos joogtay ciraaq iyo raafideynka labada webi iyo intan oo dhami ee beershiyada la sheegaa baabay ahayd yaman iyo intan oo dhan beershiya iyo xabashaa kala qabsanayo xukumayay xabashiyo romanska wakiila iyo beershiya kale isku haystay oo kolba mid qabsanayay inta yare dhexe saxaaraana fawda lama degaana bay ahayd meel fawda ah oo ninkii seeftiisu xoog badan tahay uun habeen iyo maalinba dagaalku taagaya bay ahayd meesha caynkaasiya ayuu dowladdii dunida ugu xadaaro weynay ka abuuray xoog kumuu abuurin nabiyullaahi moxamed calayhi salaatu wasalaam isagaa rijaalkiisa tarbiyaystoo keensaday keligii isagoo abuu yimi markaasuu dad soo saaray markaasuu heshiisiya galay baycat alcaqaba aluula waathaaniya taasay ku kawintay dowladdii islaamiga ahayd markaasuu hoggaamiyey magaalo dowlad laga dhisay oo badh yuhuud yihiin oo badh munaafiqiin yihiin oo badh acraab reermihi iyo mushrikiin yihiin oo badhna muslimiin yihiin buu haddana hoggaanka u wada dadka caynkaasiya ee khaliidkaasiya ayuu hoggaamiyey oo imaam u wada noqday ilaa ay dowladda weyn ee dunida ka dhigtay idan
سياسيا وقوليست أو نقالها وقوليست أو بلشها وقوليست أو وحب بني آدم كمانتا وكور رمى أردن هرمود بكوها إلهينا وحين ليه سبحانه وتعالى لقد كان لكم في رسول الله أسوة حسنة وحيد كسوغا ألا الرسول كيسا كدا يشفيعا يدو إلهي نوت المامين نبي محمد بن حريسي يدو الله نوت المامين لقد جاءكم رسول من أنفسكم عزيز عليه ما عنتم حريص عليكم بالمؤمنين رؤوف رحيم حيدي مبا إلهي إليه سبحانه وتعالى رسول عزيز عليه ما عنتم dhibtiin oo ay isaga mushkilad ku tahay in mashaakil ba idin soo gaaro qof idin naxariisanaya oo idin ka damqanaya oo noloshiina wanaageeda raba jidkiisa haddaa martaanna ilaahay baa wuxuu ina leeyahay waa hanuunaysaa wain tutiicuuhu tahtadu haddaa ateecdaan oo ku dayataanna waa hanuunaysaa وأن هذا صراطي مستقيما فاتبعوه ولا تتبعوا السبل فتفرق بكم عن سبيله أيها الأحبة كديشة مركا وكديشة في عني كديشة سيئة بين غطاء كديشة سيئة يطفي عمّا إلهي سورة دينو مال والبآخرين أبو بنوات الماء قرآن قل تاريخ دي بشرية دولم بينوغا والرمية رسول بوكا والرمية ضدحم بوكا والرمية أقوام وحما أنت لغا بوكا يدوني دي كي يردن با إلهي قرآن كينوغا والرمية ما أنت قوم لوط يدد لي يدد نوع عنا لغا والرمية إلهي با قرآن كيسا كغا والرمية نوع عاسي سيدي هاي نوع ضابط الشركة اسكف ولا إلهي قرآن كغا والرمية وتأتي في ناديكم المنكر با إلهي كنت المامية ما حمل لغو السمين هي وملوض من لغو السمين هي قرية أيام يلها ماها وفي النوادي يا إلهي قرآن كيسا كنت المامية إذن كوا نقل كحماضي كوا سياسة كحماضي كوا نقال كحماضي كوا حنا إلهي تساله ديول كسي سيادو قوي عطا تسالها عن كوا في عن أو صالحين يا أولياء يا أنبياء يا رسول تساله دي إلهي قرآن كنت المامية سورة اللي يريد مالي والبكت كدنا صدح لودي بني آدم كمربا إلهي كسوقهم صدح طريقهم باكر وبني آدم كمريكا طريق أفراد مكر بيّن هذا علماء مدوا كالين لا يكون ضيلا قد كان لكم في رسول الله أسوة حسنة هو صراط الذين أنعمت عليهم شكي كوي أظن نعميسي خير دعاء سنة إن صلاة كترنو إلهي وحي نكبر ينائنو إن مريو جدك كوي إلهي النعمية حكو حيجة غير المغضوب عليهم ولا الضالين لبقوا حوض إنك قضيتنا إلهي بك مجنجلسة المغضوب عليهم كو الرب وعروضي كو الرب وعروضي علماء واحدة أستانتوا وحويا حقا ويفهم سينا وأم غضاه لكن دنك ليلي مالك لا يرديه داد بدن باكرة تاريخ وكور رميسو وقرتي وحينو حقي هي عندنا دينا مري مثلا النبي عليه الصلاة والسلام وقتيسي حديث البخاري وكور رميانين هرقل لورجري أو بقرها أو دبتنا نمن عربيد انترفيو كقاضي مكو النبي ودري ورغضة عليه الصلاة والسلام ودور يتبع سؤالات ويديي ويحقق ودي إنه النبي محمد نبي هي واسكت ديي بقرطويضة وهيستصوه إلى شضو inuu wadaadadii intii meesha haysatay fikradda u soo bandhigo oo markay ka qayliyeen albaabada boobeen ayuu iska fariistay idinku ma idin eegaysaa diintiina oo haysataan yani maslaxadii kursiga siyaasiga inuu xajisto ka doorbiday inuu nabi maxamed raaca alayhi salaatu wasalaam inuu nabi maxamed raaco wuxuu ka doorbiday kursiga inuu haysto cid kasta oo astaanta leh fasiriintu inta badan waxay yiraahdaan waa yuhuud ويهود إلى القرآن كما قلت الماما يعرفونه كما يعرفون أبناءهم وهي النبي قام دي توقرنا إياه سيدا يعبرتو توقرنا إياه مركا قرش الآن ما يهين با إلهي ليه إيه وحوه إياه عند اسمر إن يدين عمران وحالا مدى قال بدنو ما أنت شوكته
وأوج إنه إسلامك حقي هي ويوم وقطه لكن مصالح كلا يوحي موديان إلى شان يوساد رادد وقوي علي هو سوى قار هو الله بعد إلهي لقى مغان قلينا وهو الضالين وهو أنبتك هو أنبتك سوى مركو هرب حقا ما فهمينه عدو دردري ميل عدو أردية أصوى حسنة مركا الأنبياء والرسل وقادة البشرية ومده كان كذا الرسم قا قوصا حنو بهنا مركا نولشينا wax kasto kamid inaynu weydiino rusushu xagay martay inaynu daraasayno noloshii rususha keena dhaqaalayahankii inuu daraaseeyo keena siyaasigii inuu daraaseeyo keena qaanuuniyahankii inuu daraaseeyo keena علوم الاجتماع ku takhasusay inuu daraaseeyo keena علوم الإدارة ku takhasusay inuu daraaseeyo inaynu daraasayno wixii diinteenu ay inooga sheegtay iyo dadkii saalixiinta ahaa siday waxa kan u galeen dunidu ugub maaha wax cusub oo badanina ma jiraan biniaadamka taariikhdiisu waa iska soo noqnoqotaa idan waxaa dhib ah maalin walba inaad 17 jeer ilaahay ka barido inuu dariiqa ku mariyo markaad albaabka ka baxdana in lagugu kari waayo waa kitaab kale la soo baxdo iyo models kale iyo dad kale iyo cid kale aad ku dayanayso inaad la soo baxdo dunida maanta aynu joognaa waa ambad waxay ambad ka tahay waxay weyday wixii ay ku dayan lahayd dabeetana way sii lumaysaa maanta falsafada ugu caansan ee dunidan yaalla waa falsafa alcadamiya nihilismka waxay yidhaahdaan ama falsafa alcabathiya waa dad le noloshu waa meaningless macna ma leh waad dhalanaysaa waad dhimanaysaa lefor nolosha oo dhammi macno u samayn mayso iyo in dhaqaale raadinayso oo intaa dhaqaale ka dhex raadinaysa markay noloshu bini aadamka ciddii lagu dayanayay markay luntay ayaa wax istila maanta waxay leeyihiin every 40 seconds qof baa istila suicide sameeya inta ugu badanna waa nimanka lacagta haysta inta ugu badanayna waa qolada leedahay dunida horumartay dunida hadday horumareen maxay isu dilayaan dunida horumar